بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنتم ونكسنا وعن ملك استاذون كجوكتان كسر دوادة برنامج كان عن كوكا شيف الدونو بين أي شيئين رجربا إني سوماليا بربريان أما إهربان إني بين كوكا رابتان أي عداوات كده حبوران شعب كسوماليا دحضوضة وحصو شعب بحضي فيديو للي هاي وحلقها هلي أن مدحونا هذا الصومالي لو دورتي فرماجو وويرريا سومالي لان isagoo leh Somaliland aakhira ayaan u diraynaa waanu baabi'inaynaa meel xun ayaanu ka tuuraynaa walaalayaal arrintaas markaan maqlay waan rumaysan kari waayay sida iga barateena waxaan galay baaritaan waxaan soo helay khudbad dheer u jeediyay madaxweynaha hadda Soomaaliya Farmaajo oo uga hadlay arrimo fara badan wuxuu ka hadlay laba arrin Somaliland iyo Al-Shabaab Somaliland wuxuu ka hadlay si aad iyo aad u qurux badan oo fiican oo qof walba oo Soomaali oo qalbi nadiif leh uu u bogayo wuxuu ka hadlay Al-Shabaab sidoo kale baaq fiican ayuu diray si fiican ayuu uga hadlay wuxuu ka hadlay maasuqa marka waxa la suubiyay waxa la jarjaray erayadii khudbooyinkiisi qaybtii uu Somaliland kaga hadlay qaybtii maasuqa kaga hadlay iyo kuwa Al-Shabaab kaga hadlay intii ayaa la isku daray markaas ayaa waxa laga soo saaray wax aad iyo aad u falxun waxaan idinku bishaareynayaa inaan dhageysiyo khudbadiisii oo buuxda kadibna aad dhageysataan been abuurkii laga suubiyay waalaheen Somaliland وقوي دتك دقن إن لا فريستو وح يكون قناعسين si midnimadii loo sugo in la siiyo maxaa yeelay annaga midnimada noogu weyn wax walba in lagu qanciyo wax alla waxay rabaan in lagu qanciyo maxaa yeelay waxaan ka hadleeno ma aha 1 sano iyo 4 sano ma aha 30 sano ka hadleena iyo wax ka dambeeya 100 sano iyo caruurtina ka hadleena marka dadkaas inaan soo dhaweeyno waalaheena oo negotiation dab ah la galo oo lagu qanciyo wax alla waxay raali ka yihiin si iyaga naftigoodu ay qayb uga noqdaan midnimada iyo horumarka Soomaaliyeed qoladan nabadiidka ah oo aan ku magacaawno Al-Shabaab iyaga naftigoodu waa dhalinyaro wiilasheena ah oo la khiyaamay oo been loo sheegay inaan soo celino aan cafis u fidino oo aan iraahno nolol iyo mustaqbal yaa leedihiin hasku keen qarxinna hasku keen qarxinna idinkana naar ha gelina annagana adduunka noo aqoonsanina inaan raahno aniga markii aan joogay 300 yaa markiiba noo timid oo aan mushahar u bilawnay oo meeshii sarintii aan dajinay markaan ka soo tagay 3 bilood ka bacdina kuunay gaareen hadda meel ku dambeeyaan lama yaqaan shacabkii waxay aamineen dawladdii markii de shacabkii dawladda is wataan shabaab iyo cid kale oo Soomaaliya rabta inay dhibto uma istaagi karaan ma hor istaagi karaan ana idin sheegay waxa lagu hor istaagayaa markii annaga waan kala qaybsanahay qabiil u qaybsanahay markii dawladdii iyo shacabkii ay kala qaybsan yihiin markaasi dawladdaas nafteeda aysan xigmad iyo tale aysan haynin ay ku hanato qulubta shacabka markaasi haddii cid walba oo cadow kugu ah waa ku dhibaysaa marka dhalinyaradaasi inaan saas aan xalkooda aan halkaas ka raadino waxa soo haray dawlad waxay ku shaqaysaa dhaqaale markii shacabku aamino dawladdan inay tahay dawlad daacada dawlad run badan dawlad u shaqeynaysa ee amaana ah shacabkii way la shaqeynayaan waa xaqiiqo way dawladna waxay ku shaqaysaa revenue dhaqaalaha shacabka laga aruriyo iyo dawladdu ku shaqaysaa lacagta kama timaado cirka kama timaado geed lagama guro annaga hadda halkaan aan fadhino waxaan bixinaa mushaharkeena 50% 30% income tax aan u bixinaa 20 kalena waxaan ku bixinaa hadda soo meeshaan ma fadhino waxa free ah dalkan oo kaliya waa hawada hadda soo halkan ma fadhino dawladdan u shaqeynaa maxaa yeelay meeshaan lacag ka bixinay nin walba soo baxay wuxuu kharash gareeyay maxaan ku yiraahdaa wuxuu kharash gareeyay shiidaal
waa qaadanaysaa shidaalka ku subanaysaa dawladda lacag siinaysaa haddana tagsaa lagaa jiraa cuntaan cunna hadda halkan cuntadii ninka odayga ah wuxuu nagu jaajgareeyey canshuur isna canshuurta dawladdu siinayaa fartaa qaado dawladda lacag siinaysa laakiin maxaa hesheen waxaa hesheen amni waxaa hesheen iskoolo free ah waxaa hesheen caafimaad waxaa hesheen jidad iyo buundo aan jabaynin waxaa hesheen nolol fiican ah hesheen in shacabka Soomaaliyeed laga dhaadhiciyo marka dawlad ma shaqayn karto haddaadan taageerin hawada kaliya free ah inta kale waa inaad bixisid lacagta lacagta aad dhiibtidna oo canshuurta ahna aday kugu soo noqonaysa $1 oo laga xadaayo ama qof jeebkiisa gashanay ma jiro gacanta laga goonaa qofkii qaato waa iska kaftamaya ما آخرا ندرنا آخرا كدرن مركا قفكي ومدة وحي لقى سو أروي قاته وأنا شرفت كده عادي وأنا إيمان حن ومدة كبر إحنا ولا نكره وين ملح لقيه ما شاء الله هذا الكلام دحوينها وحوا هذا الآدي هذا قرحان ورنتي قف كستو صومالي أهمال كستو صومالي هكجوج أما قبل كرب هذا الشيء أما صومال لأنها هذا أما مالك له كي ما هذا الوحوها معقولة وما تقنا الله رياقه maxaa yeelay wax fiican ayuu ku baaqay markii madaxweynaha sidaas u hadlay oo uu ka hadlay Somaliland oo uu ka hadlay al-shabaab oo uu ka hadlay corruptionka ayaa waxa la suubiyay waa la isku jarjaray oo waxa laga soo saaray hadalkan foosha xun ee la faafiyay ee lagu sheegay sirta bal ila daawada xaqiiqdana markaas ayaad ogaan doontaan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un Somaliland waqooyiga dadka degan iyo cid kale oo Soomaaliya rabta inay dhibto uma istaagi karaan ma hor istaagi karaan ana idin sheegay وين ملح لقيه ما آخرا ندرنا آخره هذا ما يكون بيان لما يقال وحفري كوي ماذا مجران سومالا وغوي دتك دقن يعيد كلو صوماليا ربط إلى دبتم وما يستاهل كرا مور يستاهل كرا أنا يدين شيء جاي وين ملح لقيه ما آخرا ندرنا آخره هذا ما يكون بيان لما يقال وحفري كوي ماذا مجران سومالا وغوي دتك دقن يعيد كلو صوماليا ربط إلى دبتم وما يستاهل كرا مور يستاهل كرا أنا يدين شيء جاي وين ملح لقيه ما آخرا ندرنا آخره هذا ما يكون بيان لما يقال وحفري كوي ماذا مجران لا إله إلا الله ولا ليال waxa soo baxay rag raba inay noocaas ku qaraabtaan waa rag raba inay Soomaali kala dilaan waa rag qabyaaladii qurun ay hayso waxaan leeyahay walaalayaal Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka cabsada waxaan kaloo shacabka Soomaaliyeed ku baraarujinayaa waxyaalaha noocaas oo kale inaysan buunbuunin ragga waxaan suubinayaa walaalayaal waxay ku qaraabtaan wax la yiraahdo click ay ku xisaabtamaan oo waxay ku xisaabtamaan wax la yiraahdo xayeysiiska ay been ku sheegaan laba jeerba been way ku qaraabanayaan mar ay dadka sirayaan oo ciwaan been suubinayaan iyo mar ay been ka shaqeeyeen waxaan leeyahay waqtiga aad ku isticmaasheen inaad codkaas isu geysgeysaan oo isku jarjartaan danta ummadda Soomaaliyeed ku isticmaala sidoo kale waxaan leeyahay walaalayaal aysan dadka warxumata shilka ah ee website-yada leh ee fiidiyowyada iska soo duubaya aysan ina marin habaabinin waxaad ogaataan inaad dareenkiina xukuntaan waxaad ogaataan hadalkan macquul inuusan ahayn qof mas'uul ah oo Soomaali ah inuusan macquul ka ahayn inuu dad ugu khudbeeyo midda kale walaalayaal wuxuu ku leeyahay sir la helay xagee sir ka tahay waa shir weyn uu qabtay shir jaraa'id ama dad uu khudbeynay ayuu ka jeediyay cajalkan wuxuu soconayaa 38 daqiiqo ayuu soconayaa cajalkaas la soo jaray marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed wayna ogaatay waa fashilantihiin qabyaalada hala joojiyo madaxweynaha haatan joogana waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala uga baryaynaa inuu xilku u sahlo inuu mataqaanaa ummadda cadaalad ku hogaamiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhigo nin mataqaanaa Soomaaliya ka samata bixiya dhibaatada ku jirta sidoo kale waxaan leeyahay idinkana hasku daalinina waanu niga daba shaqeyn doonaa markasta aad been sheegtaan xaqiiqda ayaan keeni doonaa walaalkii Naasir Cadceed idin leh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh